بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada مطبخa Muna maanta waxaan sameyneynaa simple steak recipe waa hilib aad u fudud Soomaali hadaan nahay hilibka aad baan u jecelnahay kana noocan waxa la yiraahdaa steak recipe Soomaali saan ugu macneeyo si fiican ma garanay laakiin kulli ka soo qaad hilib la shaaxidiyay ama si fiican loo shiilay oo aad iyo aad u macaan aadna u fudud waqti yarna ka qaadanaya so insha Allah let's go waxaan hayaa halkan ku hayaa 500 gram 500 gram oo ah steak hilibka jazaarka ama ninka hiliblaha ayaa midida saa igu khafiifiyay oo slices ka dhigay laakiin طبعا aad guriga ku sameyn kartaa hadaad insha Allah doonaysid hadii kale ninka jazaarka ah hiliblaha ka soo iibsanaysid baa ku sameyn karaa waxyaabo badan uma baahnin waad ka yaabi doontaa fileedkiisa horta mooyir baan ku tutumayaa si uu flat u noqdo uma laasanaado waxaan u baahanahay kaliya uun milix iyo pepper salt and pepper waaba intaas wax kale looma baahno macaankana waad ka yaabi doontiin waliba marka lagu shiilo butter ama zubd ama subag marka lagu shiilo wax ka macaan ma jirto saad arkaysiin milix yar baan dusha ka marinayaa iyo pepper yar qof kasta dadku sumid maaha dadka badan milixda badan jecel filfil aswadka ku badsada طبعا caruurta waa filfilka aswadku waa yara kulayl marka ayaga ha ugu badanina dadna way ku yaraystaan marka anu yar baan ku waxaynayaa hadhowna markaan shiilayo baan inta in yar dusha kaga daraa haddii aan isleeyahay way u baahan tahay laakiin waxaa u baahan tahay kaliya uun waa salt and pepper steak la sheegaba salt and pepper weeye waxaan soo qaadaynaa maqlaheeni subag inaad ku shiisid ayaa aad iyo aad u wanaagsan oo aad u macaaneynaya steaka haddii kale saliid waad ku samayn kartaa laakiin saliidda iyo subaga marka lagu shiilo subaga ayaa aad u macaan kulli marka kii labaad baan sameynayaa waa kuwan kulligooda diyaara 500 gram oo diyaara bas inaan shiilo shaaxidiyo un baa hadhay dabka ka gaabiyo labada dhinacba marba rogo marka qof kasta ay soo jecel yahay waxaan jeclahay inay xigaan sidii wax guftay oo kale aan laakiin guban yani very dark golden brown oo noqdo yani madow aad ah oo la moodada inuu gubtay oo kale mana guban taas aan ku jeclahay laakiin dadka qaar baa 5 minutes markuu saarnaado dhinac kale la koriyo 5 minutes saas un baa ku cuna marka adiga ikhtiyaarkaaga weeye waad aragtiin subaga imika marmar dhifa sida maanta oo kale qaarkood kulli hilibka dhan maaha qaar waxaan ku darayaa zaatar geedka yar akhtarka ah oo udgoon aan hore inii soo tusay lasaanyadan ku daray suugada qaar lagu daro marka waan jeclahay marmar inaan ku daro marka qaar baan ku darayaa qaarna waan ka daynayaa waayo dadka dhan ma jecla guriga wax kalena oo buharaat ah ama buharaat af Soomaali maxay ahayd xawaashi ah kuma darayo intaas un weeye waana diyaar kadibna sidiisa ku cuni kartaa laakiin badanaa dee qado haddaad doonaysid sidoo kale waa inaad khudaar u samaysaa maanta waxaan sameynaynaa khudaar aad u fudud horta waad aragtiin dhinacyadii baan rogrogayaa qurux iyo macaanka waad ka yaabaysiin marka midida uu jazaarku ama ninka hiliblaha aad يعني slices khafiif oo thin ah ka dhigo horu bislaanaya laakiin steak kamsan oo kale hilibkiyo buuran hadda soo qaadid waqti dheer buu ka qaadanayaa intuu dabka saarnaanaya laakiin marka slices laga soo dhigo sharaa'ic marka laga soo dhigo horu bislaanaya waa kan wad aragtiin madow yar buu xiraa bunni adu ma sha Allah sidan baan ku jeclahay macaanna weeye kii labaadna waan saaray waa kan waxaan ku sameynaa marka qada hadaan doonayna ka dhigno oo badana aan anigu ka dhigo waxaan u sameynaynaa khudaartu way kala duwan tahay broccoli baad sameyn kartaa celery cauliflower iyo broccoli Soomaali ma garanaya geedkii madaxa kuusan oo akhtarka ah iyo ka madaxa kuusan oo cadaanka ah cauliflowerka waxaad u sameyn kartaa waxyaabo badan oo kala duwan anigu waxaan sameynayaa maanta green beans ka waad aragtiin waa fuul yar fasuuliya ayaa carabi lagu yiraahdaa waan mareynayaa marka iyadoo daasad ku jirta oo diyaar ah oo wax yar u baahan dabka saarnaato ama mid iyadoo aad soo qaadanayso diirka inta ka qaadid fasuuliyada yaryarayd ay ku jirto dhexda oo karinaysid marka tan waa tii daasadaha ku jirtay markaan waqti haysan baan tan soo iibsadaa haddii kalena ta kale ayaan isticmaalaa carruurtu way jecel yihiin intay fadhiistaan shaandho soo qaataan saa ugu ridaan oo ka saaraan diirka fasuuliyada oo ku ridaan marka laakiin tii diyaarka maanta soo qaatay fasuuliyadana wax kale ma baahna green beans kan butter
zubda ama subag ama digsi saa u saarayaa dhag baashii baan ku ridayaa beaniskii milix iyo waxaan ku darayaa filfil aswad salt and pepper wax kale uma baahna waxay saaraanaysaa dabka adigu waxaan jeclahay waxyaabaha anigu aad loo shiilo laakiin dadka badanaa 2-3 minutes buu saarnaadaa dhag oo laga qaadaa laakiin anigu 10 minutes baan dab gaaban u shidaa laakiin calaa xasab idinku saa ku jeceshiin dad baa sideeda daasadeeda ku jirta kasoo saara oo ku cuna aan kulaylin oo waxba ku samayn waa kaa cuntadii waa diyaar 2 midho steak waa aragtiin halkaasaan soo dhigay waxaan kaloo ag dhigaynaa mashed potatoes linka dusha saraagta arki doontiin hoostana waan soo dhigayaa linkiga oo baradhadii la bujuujiqiyey aan hore usoo sameeyey channelka waad aragteen way la socoteen insha allah iyo in yaroo green beanskii baan dhigaynaa qada ka wanaagsan bal ii sheegay idinku maasha allah calaa barakatillah baarak allahu fiikum for watching and insha allah see you next time asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bisixa walcaafiya